Saacad ku kicisa aroortii xilli hore shaqada ama waxbarashada, ama muuqaallo aad ka daawato YouTube-ka, dhammaantood waa applicationo ama programmo loo yaqaan apps ama applications kuwaasoo qabta waxyaabo kala duwan oo aad u isticmaasho noloshaada maalinlaha ah. Moobilada smartphone-ka, tablet-ka iyo weliba kombiyuutarada ayaa applicationada kala duwan oo loo isticmaalo sida inaad ku madadaalato, inaad weliba bills-kaaga aad ku bixiso, iyo weliba inaad applicationo kala duwan aad u kala isticmaasho sida inaad kula xiriirto dadka goob haddaad u baahato se location-keeda iyo meesha ay kaga sugan tahay deegaanka markaad joogto, sida inaad hesho coffee shop ama meel cafeteria. Location-ka program kuu sheegi kara ayaa isagana waxaa loo yaqaanaa applications. Sidoo kale programmada ku jira laptop-ka ama kombiyuutarka aad isticmaalayso nooca uu yahayba, browserska iyo weliba Word aad ku qorato documents kala duwan ayaa iyagana loo yaqaanaa apps amase applications. Moobilada tablet-ka ama iPad-ka ayaa weliba aad kusoo install garaysan kartaa iyo weliba noocyadooda kala duwan adigoo communicationska, productivity-ga iyo weliba entertainment-ga ama madadaalada u isticmaalaya applicationada kala duwan. Haddaad tahay marwo, gabadh amase wiil labadaba intaba waxaad u isticmaali kartaa applicationadaas noloshaada maalinlaha ah. Muuqaalkan like saar, subscribe channel-keena, sina share garee muuqaalka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi.